hay-adda taakula ayaa deeq qalabka dhakhaatiirta ku wareejisay cusbitaalka guud ee Hargeysa iyo Adna Maternity Hospital. deeqdani qalabku oo iskugu jirtay sariiro, furshaan, daawooyin, baaskiilada iyo qalabka shaqaalaha cusbitaalka ayaa waxa hay-adani taakula ay ku wareejisay. waxa iyaguna qalabkani ka gudoomay agaasimaha guud ee dhakhtarka Hargeysa Axmed Askar iyo Adna Aadan Ismaaciil. gudoomiyaha hay-adda taakula Cumar Jaamac Faarax oo ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay in qalabkani caafimaad ay soo direen Australian Doctors. hay-adani taakulana ay ku wareejinayso cusbitaalka guud ee Hargeysa iyo cusbitaalka Adna Maternity maadaama oo qalabkani ay isticmaalaan dadkeena xanuunsanaya oo ay u baahan mar walba qalab caafimaad oo tayo leh. sidoo kalena ay qayb siin doonaan agoomaha iyo cusbitaal cusub oo laga dhisi doono Qorolugud. sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha hay-adda taakulo hay-adda Australian Doctors South Africa 2007 bay timi waxay gacan weyn ka geysatay cusboonaysiinta qaybta qaliinka cusbitaalka guud ee Hargeysa. maqsinada qaliin dharka lagu maydho mashiin bay keeneen, muddo dhowr container bay keeneen qalab caafimaad. dhakhaatiir bay soo direen qaliin samaysa. jaamacadda Hargeysa waxbay ka dhigaan sidii aadnaba sheegtay, sidna aadan jaamacaddeeda yana waxbay ka dhigaan. marka ma aha niman wadanka ku cusub. aad baan runtii ugu mahad celinaynaa. waxaan mahad siinaynaa TV-ga qaranka isna maanta nagala qayb qaatay coverage-kan. iyana waxaa madashani ka hadashay Doctoresa Adna Aadan Ismaaciil oo u mahadnaqday Cumar Jaamac iyo hay'adiisa taakulo iyo Australian Doctors ee deeqdani qalabka ku wareejisay, iyadoo sheegtay in aanay ahayn markii ugu horeysay ee ay soo gaarsiiyaan deeq noocan oo kale ah, kana warantay sida uu cusbitaalkeedu ugu baahan yahay sariiraha noocan ah ee bukaanka lagu jiifiyo iyo kuwa qaliinka lagu sameeyo, iyadoo sheegtay in cusbitaalku ay yaalaan weli kuwii lagu furay cusbitaalka. waxa kale oo Adna sheegtay in Australian Doctors aanay ka caawin qalabka oo kaliya ay tababaro iyo qaliinba ay u sameeyaan cusbitaalkeeda, aqoon wanaagsanna ay siiyaan dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalka Adna Maternity. isna waxa ugu dambeyntii madashani ka hadlay agaasimaha guud ee cusbitaalka Hargeysa Axmed Askar oo isna ka waramay sida uu baahida aadka ugu qabay cusbitaalka Hargeysa qalabka caynkan oo kale ah ee iskugu jira dhammaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka qalabkooda, hadday noqoto qalabka jajabka, qalabka lagu seexday iyo kuwa qaliinka lagu sameeyaba. waxa kale oo sheegay agaasimuhu in hore ay hay'adani ay meelo badan cusbitaalka ay dayactirtay, cid kasta oo wax ka tarayso cusbitaalkana ay soo dhaweynayaan. waxa kale oo agaasimuhu si aad ah ugu mahadnaqay hay-adda taakula iyo Australian Doctors ee qalabkani soo gaarsiiyay. gabagabadiina waxa ay hay-adda taakula ku wareejisay qalabkani cusbitaalka guud ee Hargeysa iyo cusbitaalka Adna Maternity.